بسم الله الرحمن الرحيم كسو dhawaada casharkeeni taxanaha ee access 2013 adoo ku sameynaya database casharkeena waxaanu ku qaadanaynaa componentiga labaad la dhaho magaciisa queries awal waxaanu soo qaadanay tables relationships ayaynu sameynay validations ayaynu ku sameynay xogta ayaynu soo saxnay hadda waxaanu maraynaa querieski oo ah componentiga labaad ayaynu sameynaynaa wala uu ku koray oo ahaa tables waayahay query waa maxay qabataa query waa ask su'aalaha adigu isweydiinaysa maxaa kamid ah sidee ku heli karaa productska ama badeecada loogu gadashada badan yahay oo kale sidee ku heli karaa productska iyo inta order laga sameeyay product walba waxa kale isweydiin kartaa xog ku saabsan macluumaadkii oo dhan qofkii wax dalbaday waxa uu dalbaday xilliga uu dalbaday waxaas oo dhan isweydiin kartaa marka xogtu waxay kaaga kala fiiqsan tahay table fara badan oo 4 table ayay kaaga kala fiiqsan tahay xaggan customer labada customer ku jira orderka wali waxa order ma sameyn order line sidoo kale productska saddexda product ayaan ugu jiray marka inta aynu soo sameyn horta query waa inaynu ku soo darnaa wax la dhaho orders iyo order lineski oo ah invoice-ki marka customerska waxaanu haysanaa tusaale labada qof ayaynu haysanaa waxaanu ku xajinaynaa order marka aynu doonayno inaynu tijaabino double click ayaynu siinayna orderka hadda wax kuma jiraan order marka order sameeyay marka hore waa inaad customer table aad eegtaa dadka kugu jira customerka koowa ID-giisu waa 1 iyo 3 marka customer la dhaho 2 ma jiro maskaxdaada ku hayso soo marka order sameeyay waxaad gelinaysaa tusaale customerka koowaad date-ka wax dalbadanay waa maanta customer 2 hadaan geliyo wuu iga diidaya sababtoo customer 2 ma jiraba oo mar weyn soo dhileedna marka halkan waxaan sameeynaa customer 3 oo Aasiya ah ayuu leenahay 10 maanta lab samaysa hadeen dan waxaanu dhihi karnaa xog hore ayaynu gelin waxa leenahay customer 3 baa wax dalbatay oo kale 10 bisha soo orderska marka soo sameeyno halkan waxaad aragtaa orderkii ID-giisa oo taxanaayo marba wax ku sii kordhaya 10 buu ahaa 10 buu noqday 12 marka order line tagaysid qofkii magaciisa gelimaysid orderka ayaad gelinaysaa marka order line tagaynaa waxaan rabnaa inaan order ID-ga gelino order ID-gu hadda wuxuu ka bilaabmaa 10 ilaa 12 weeye laakiin ma jiro order 1 iyo 2 ah waynu soo dhileednaa adiguna xogtaadu hadii aad wax soo dhileeday waxaad eeganaysaa ID-ga soo ID-gan waxaynu ah 10 iyo 11 iyo 12 marka order line-ka aynu tagaynaa order line-ka double click siinayna waxaanu leenahay orderka 11aad orderka 11aad maxay waa qofka ID-giisu 3 yahay oo ah Aasiya maxay dalbata waxay dalbatay productiga la dhaho productiska tag waxay dalbatay productiga tusaale ahaan afraad oo ID-giisu yahay 4 oo ah laptop ayay dalbata waxaan leenahay waxay dalbatay productiga la dhaho laptop waxay ka dalbatay 2 xaba ay qaadatay orderka kale aynu sameeyna weeye waxaan dhihi karnaa isla Aasiya oo number 2 ahaa ba waxay sameysay order kale oo halkan ku jira oo 12 ah ayay sameysay kabacdina waxay dalbatayna waxa weeye productiga la dhaho tusaale ahaan waxay dalbatay battery-gaas ama laptopka kale dalbatay oo ah ID-giisu wan yahay ayay dalbatayna kabacdina waxay ka dalbatay hal mid waxaanu kala sameyn karnaa orderkan kale oo number 10 ka ah waa orderkii uu sameeyay qofka la dhaho customer la dhaho number 1 oo ah Cabdi waxaan leenahay orderka line-ka aynu tagaynaa waxaan leenahay orderka horta let me close all waxaan marka hore ku filan customerka orderka iyo order line-ka iyo productiga saas marka orderka tobnaad ayaynu halkan gelinaa waxaan leenahay orderka tobnaad oo uu sameeyay Cabdifataax wuxuu dalbaday productiga la dhaho 4 isna wuxuu ka dalbaday xabad haddana waxaan leenahay intaas inuu deynaa waa saddexda invoice baa dhacay marka haddii aad tiradan ku wareertid waxba ka walwalin kan uma baahnid kan waxba kama bedeli kartid mar walba waayo waa auto increment isaga mar walba isku kordhinaya sidoo kale kuwana waxba kama bedeli kartid kuwana waxba kama bedeli kartid laakiin marka aad order sameynaysid waa inaad customerka ID-giisa aad gelisaa meesha ay ku qoran tahay customer ID jira aad halka gelisaa haddii customer ID 4 aan jirin geliyo weydiidaya wuxuu leeyahay ma jiro customerkan cilada soo saaraya marka order line-kan marka sameynaysid waa inaad order ID haysataa waayo customer ID halka kuuma jirto waa inaad wada order ID-yada haysatid halkan aad ka eegtaa marka forms-ka markaynu gaarno graphical user interface ayaynu isticmaali doonaa hadda waxba ka walwalin inaad sidan u gelisid manualka waxaad kala dhigi kartaa waxa dhacay hadda productiga 2 jeer baa leebsaday mar order kale ayaynu ku soo darnaa waxaan leenahay orderka kale waxa weeye aan ku soo darayno qof kala dhaho number 1
baa wuxuu dalab kala sameeyey 10kii bisha haddana qof kale dhaho 1 ayaa dalab kala sameeyey 9kii bisha waa dheyd hore markaasi xogteenu u badato saasaynu gelinaynaa marka orderska hadda order 13 iyo 14 soo galay order line kan tagaya halkan waxaan gelinayaa 13 productiga la dalbaday waxaan leenahay waa 4 waxaa laga dalbaday xabad order 14 productiga la dalbaday waa 1 waxaa laga dalbaday productiska intee nagu jira 3 baa nagu jira 2 ayaynu gelinaynaa 2 ah marna aan soo noqon productiga la dhaho 2 buu dalbaday qofkani sida ayaynu ku save kareynaynaa marka productiga la dhaho 2 ma jiro yiri productigan ID-giisu waa maxay waa 2 waa ogol yahay halka ayaynu waxaan ka dhignaa 15 waayo cilada waxaa ka dareemaysaa table-ka uu ku diro orders buu inoo diraa marka waxaan fahmaysaa in order ID tahay marka order ID-gan aynu ka soo dhigaynaa 14 waayo order ID 15 ma jiro halkan 14 baa ugu dambaysa haddii aynu khaladno halkan ka dhigno 12 wuxuu nagu qabsanayaa products marka waxaan fahmaysaa productiga inuusan ID-giisu ka jirin xaggan product ID-gan inuusan productigan ka jirin ayaad fahmaysaa halkan waayahay xogta inta hadda inaasno close all ayaynu leenahay automatically uu save gareeyay okay cilad baa ina haysta halkan ayaynu waxaanu ka soo tagnay 12 ka dhignay oo 2 ka dhignaa okay close all ayaynu leenahay waxaan rabnaa marka xogteenu inoo dhameystiran tahay inaynu query soo sameeyno tusaale ahaan badeeco walba inta goor la dalbaday ayaynu rabnaa soo sameeyno waxaan tagnaa create waxaanu isticmaalnaa query wizard ayaynu tagnaa okay ayaynu leenahay waxaanu ku soo daranaa productiga magaciisa iyo waxa la dhaho marka table-ka waxaan taagan hadda la dhaho products ayaan taaganahay hadda aan cancelo oo table-ka la dhaho order istaago order-ku iga sameeynaya order-ku ii geeyaa marka aan tago query wizard waan next dhaho table-ka order-ka ay select garaysna ayuu halkan iga saaray marka hore waxaan tagnaa products ayaa tagaysaa waxa ku soo daraysaa magaca productiga tusaale ahaan iyo description-kiisa waxaan kala rabnaa quantity-giisa waxaan tagnaa order line quantity ayaynu soo qaadaynaa marka arrows-kani waa hal mar ku dartani waxaaba ku wada dar hal mar ka saar oo tan ka saari karnaa hal mar ku dar waynu ka wada saari karnaa waynu ku wada dari karnaa marka hal midna waynu uga saari karnaa waxaas loo sameyn karaa marka waxaan u baahnaa quantity-ga hal mar baan ku darsanaa iyo okay ka saar products-ka ayaynu ka wada saarnay products-ka tag waxaanu ku soo daraynaa marka hore product name iyo description-kiisa quantity-gana waynu ka saaraynaa xaggan aynu tagaynaa order line-ka si uu hoos nagu maro okay ka noqo quantity-gana waxaanu ku soo daraynaa halka description-ka hoostiisa marka waxaan rabnaa productiga iyo description-kiisa iyo quantity-ga inta jeer la gatay next haddaan dhaho oo ka bacdi finish dhaho mid walba quantity-giisa ayuu noo saarayaa laakiin waxaan rabnaa xog dahsoon inaynu helno oo productigeena inoo matalaysa inta jeer la gatay close ayaan leenahay kan iska delete garanaynaa yes waxaan tagaynaa create query wizard ayaynu ku soo noqonaynaa sidii ay hore aynu ku soo noqonaynaa product waxaan ku soo daraynaa magaciisa iyo description-kiisa iyo waliba quantity-giisa ayaynu order line-ka soo helaynaa inta markaanu sameeyno marka hore waxaanu kaga duwanaanaynaa marka hore detailed-kaas aynu dooranay summary ayaynu dooranaynaa summary-dan waxaanu soo baxay quantity waxaanu rabnaa sum of quantity ama isku darka quantity-ga la iibsaday productiga next ayaynu leenahay ugu dambeynna finish waa kan productigan del la dhaho lamaba iibsanba laptop-kan Dell Verizon-ka waxaa la iibsaday hal mar laptop-ka la dhaho Toshiba Satellite 4 jeer ayaa la iibsaday marka rename oo ku sameyn karnaayo marka hore rename ku sameyn kar lahayn hadda laftiga rename ka sameyn kartaa xalay kartaa products magaca dunta oo bixin kartaa product walba iyo quantity-giisa inta jeer la gatay ayaad u bixin kartaa marka hadda oo kale kan oo kale battery-gan lamaba gadanba bal ID-giisa aynu soo eegno in la gatay battery-ga number 2 ma ku jira talo battery-gu ID-giisa waa maxay ID-giisa battery-gan waxa weeye waa 2 lamaba gadan buu ku leeyahay sababtoo ah halka order-ka waxa ku jira 0 haddaan dhahno 6 oo aynu saa ku save karayno products aynu tagno query-geeni refresh karayno intaynu home ka tagno refresh all dhahno wuxuu leeyahay 6 jeer ayaa la gatay ayuu leeyahay marka uu isku darayaa haddaynu tusaale ahaan kan Toshiba Satellite kan 4 jeer baa la gatay ayuu leeyahay wuxuu soo qaadanayaa Toshiba Satellite ID-geedu waa maxay ID-geedu haddaynu products ka soo eegno waa 4 marka intee goor bay order line ka soo gashay waxay soo gashay
kow laba iyo saddex waa labada iyo wuxuu isku darayaa halkaa saddex iyo kaa afar haddaad tusaalaan kaa ka dhigo saddex wuxuu isku darayaa labada oo hal mar la gatay iyo kaa halkaa saddex iyo saddex lix buu ka dhigayaa haddaan double click siiyo oo kana refresh gareeyo meesha fourka muxuu ka dhigayaa lix ka dhigaya lix jeer ayaa la gata waayahay habkaasi waa habka adoo isticmaalaya query wizard habka dambe waxaan isticmaali doonaa insha Allah query design ayaan isticmaali doonaa casharkeenu halkaas ayuu noogu joogi doonaa aad u mahadsantihiin